kaas bay aaday marka waxaa la doonaya afka hooyo in la qoro markaasuu saa u fiiriya muunu kaasku hooyaa wiil ka yimid hiiraan reer beledweyne ah ayaa waaga ololihii waxaa la yidhi ninkii wax yaqaan macallin ah xaafadaha ayuu wuxuu uga dhigay alif ba ta ja waad aragteen tv-ga ma aragtay ololaha markaa loo bedelay habro oo islaamo aan weligood guri kasoo bixin shukoole ah ayaa waxaa loo dhigaaye farta af soomaaliya waxaa la yidhi kalluun ayaa la yidhi kalluun maxay ka yaqaanin kalluun marka gabaraa waxay weydiisay hoos waxay leedahay kalluun maa lagu jeede maxaa loola jeedaa kalluun tii ay wax yar fahmaysay ayaa waxay tiri iiraan lagu jeeda iiraan afka oo maasun doontii oo shangaanina looga hadlo markana looga hadlo waxay ku jeedaan malaay ama kalluun iiraan macallinkii waa maqlay in hoos la xamanayo ayuu u malay wuxuu yidhi oheedhe haddaan hiiraan ka imid maxaa kaa galay ma kasta xamarna marka sidaa oo kale waagaas wardhigle la dhihi jiray iyadana saas oo kale ayaa maaragtay nin reer wardhigle ah ayaa wuxuu u dhigayay cidihiisii markaasaa faadumo mahasay aaday asay meeshaa dhaqday oo dharkiis asay yeeshay lahjadiisa ilaa nin walba waxaa la yihi far qoranba lama dhihi kormeera oo dhinacaas u ka yimid mirigii wixii ka shisheeye ka yimid ayaa dhageystay ninkan warkiisa markuu dhameeyey oo ka tageen dadkii yar haadhe maxaad qorayseed soomaaliyan qoraayo dee waxaa la doonayaa inaad tiraa faadumo way meedhay halkaas bay aaday marka waxaa la doonaya afka hooyo in la qoro markaasuu saa u fiiriya muunu kaasku hooyaa